gabadhii markay aragtay ninkeedii in uusan hooyadiis waxba ka qabanaynin arrinteeda waxay go'aansatay inay sodohdii wadadeedii ka hor leexiso oo noloshaba ay usoo dhammayso oo cuntada ay cunayso sun ugu darto. gabadhii way baxday kadibna waxay aaday farmashigii markaas ay daawooyinka ay kasoo gadanaysay. daawooyinka ayay soo qaadatay, ninkiina wuxuu kusoo amray inay u qaadato sida asaga markaas uu ugu soo talagalay. haddaba maxaa dhici doono muuqaalka ku daawo bilow ilaa iyo dhammaad. wixii ra'yigaagaan adiga markii aad dhammaysato hoos noogu reeb, muuqaalka like saar, asxaabtaada u sheeg. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaala qaaliga ah ee ku xiran janalkeyga Munaysa Janal, meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan aan rajeynaa. fadlan haddii ay tahay markuu ugu horeysa aad janalkeyga soo booqanayso waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto, gambaleelkana aa furato, muuqaalkana aa like saarto, asxaabtaadana aa u share garayso. aad iyo aad aa u mahadsantihiin walaalaha cusub, walaalihii hore ila joogi jiray iyo kuwa gadaal igaga soo biiri doonaba dhammaantiina gacmo furan iyo qalbi saaka igu soo wada dhawaada. meel walba adduunka ga sugata ilaah subxaana watacaala ha idinku xifdiyo. soo dhawaada idin lee. maanta waxaa idin wadaa qiso aad iyo aad maxay ahayto cajiib u ah. gabdhaha iyo sodoyaashooda isku dhib qabo, heerkan oo kalena isla gaarayaan. waxa markaas xal u noqon kara ay ku kala badbaadi karaan ayay noqonaysaa qisadan. fadlan waxaa idinka codsanaa inta aad sheer garayn kartaan inaad sheer garaysaan. wixii ra'yigiina markii aad dhammaysataan muuqaalka commenti yar leh, waa commenti lacag maan mogtiin, commentiga noogu soo reeba insha allah. qisadan waxay ka dhacday waddan ka mid ah wadamada carabta ayay ka dhacday. waxay ahayd gabar yar oo dhalinyaro ah oo jaamacad dhiganayso. gabadhan waxay isjeclaadeen, wiil ayay isjeclaadeen, waxayna ku heshiiyeen inay isguursadaan. wiilkan waa wiil madi ah waaye, hooyadiis keligiis ayay haysataa. asagaa wiil u ah, asagaa gabar u ah, asagaa wax walba u ah. markii ay go'aansadeen, hadda gabadhii waa lasoo doontay, islaantii wiilka dhashaa timid, gabadhii way soo doonteen, waa lagu daray. markii lagu daray kadibna waxaa lala dejiyey, sodohdeed ayaa lala dejiyey. maxaa yeelay sodohda wiilka yacni ma samayn kara inuu gooni u dejiyo hooyadiis. gabadhii yacni ma dhihi karo gooniya yacni u bixi karnaa ama maxay to guri gooniya ayaa isla degaynaa anii xaaskayga, taasna ma samayn karo oo hooyadiisa. waxay noqonaysaa in daryeel la-aan iyo ogaashan la-aan iyo maxay ahayto wehel la-aan in markaasi ay ku dhacdo ayuu ka cabsaday. marka wuxuu ku qasbanaaday in uu soo dejiyay gabadhii guriga markaas hooyadiis ay ku nooleed, ay hooyadii iyo wiilka hore u deganaayeen. muddo kadib adiga arooska markii la cusub yahay waa iska dareemi kartiin, xoogaa waa la isku cusub yahay, ma la isla dhexgalaayo, waa la kala sariiganaa, waa la kala xishoonaa. qof walba wixii markaas yacni xaqiiqadiisa ama maxay ahayto noloshiisa oo dhabta ah bannaanka ma usoo bixinaya ilaa iyo xoogaa markii laisla noolaada moogee. waxaa dhacday dhowr bilood markii arooskii uu kasoo wareegtay gabadhii iyo sodohdii in ay heshii waayaan, isku dhacoodii aad iyo aad u bato. gabadhiina ay mar walba ka sheeganayso sodohdiina ay gabadha mar walba ka sheeganayso. wiilkii ayaa mar walba loo araarinaa amaba maxay ahayto looga ishtakoonaa arrinta markaasi jirto. wiilkan maalinkii oo dhan shaquu ku maqan yahay, guriga markii habeenka uu yimaadana dacwo ayaa uga soo horeysa oo habartiis ama hooyadiisa iyo gabadhii markaasi uu qabay. wiilkii wuxuu jecel yahay yacni hooyadiis iyo gabadhii inay noqdaan dad isfahansan, si yacni ixtiraam leh, si markaas kalgacal leh, jeceyl ku jiro, ay ku wada noolaadaan gabar iyo hooyadeedoo kale ama gabar iyo sodohdeedoo kale in loo wada noolaado. laakiinse ma rabaan dadkan, waxay isku yihiin labadooda Tom and Jerry, lesmaba arki karaba. wiilkan hooyadiis wuu jecel, waa hooyadii dhashay waaye. gabadhiina sidoo kale wuu jecel, waa xaaskiisa waaye, xaaskiisii oo cusub waaye. wax yacni uu ku sameeyay wuu waayay, wuu daalay, so uu dhexaadinayay. gabadhii waxay aragtay in arrinta markaas ayada mar walba ay ka sheeganaysa in ninkeeda xal uusan u helaynin, oo islaantan yacni bannaanka aana loo bixinaynin ama ayada aan bannaanka loo bixinaynin. kadib waxay go'aansatay waxa ku hor joogo oo ku caqabadeynayo oo noloshaadii farxaddeedii aa u qaadan laadahay soo duqdaan cajuusada ma ahan.
marka waxaa sameysaa ayada maadaama wadadaada ay hortaagan tahay wadadaada ka leexi si markaas noloshaadii si xur leh aa ugu noolaato adiga iyo odaygaaga yacni ayada saas ayay iska dhaadhiciso oo go-aan ay ku gaartay bas marka waxaa jiray nin markaas farmashiista oo ayada aad iyo aad ay iskugu fiicnaayeen oo waqtigii jaamacadaha ay dhiganaysay ay jaamacad iskala soo baxeen laakiinse kale kulliyaday ahaayeen asaga wuxuu soo bartay doctora ayuu soo bartay kadibna wuxuu furtay farmashi weyn oo furtay oo daawooyinka dadka uu yacni ka gadaayo ay usoo qoraan ama maxay ahayto dadka yacni xanuunsan oo xanuuno yaryar iska hayo daawooyin yar antibiyootic iyo waxyaabahaas yacni kaniiniye iska maxay ahayto raboo kaleento inuu u qoro oo siiyo oo yacni ka gado ninkii markii u timid waxay dhahday hebelow haye xaalad ka war caafimaad ka war aniga dhibaata ay haysataa arrintii oo dhan ay uga sheekaysay waxay dhahday islaanta sodohdii ayaa nafti ii keentay meel aan ka galo ayaan la ahay nolosheedii waa kaarsan la ahay ninkaygiina inuu bannaanka u bixiyo ma rabo anigana inuu bannaanka ii bixiyo ma rabo maadaama ay duq tahay ee lugteeda aakhiro usii socoto waxaan rabaa inaa usii dadejiyo camal ma jirto subxaan allah waxaan la yaabay sodoh iyo gabadha wiilkeeda qabo maxay badanaa isku dhibsadaan waayse gabadha iyo sodohda wiilka dhashay mar walba maxay yacni saan ay iskugu dhibsadaan ama ay u heshiineynin ama maxay to khilaafaad mar walba oo uga dhexeeya taas waa fahmi waaye aniga inkastoo horta sodoyaasha ay wada xumeen gabdhahana sidoo kale aysan wada xumeen haddana waxaa jiraa mararka qaar isfahan waa inuu meesha yimaado markii uu sheegtay wuxuu dhahay wiilka yacni meel la fiican inuu wax ka tusiyo ayuu isku day wuxuu dhahay sodohdaa wanaaji maxay ahayto waxyaabay kugu dhibsanaysay iska dhaaf hooyadaa oo kale kasoo qaad way diiday gabadhaan maya dhahday aniga waanamaa kugu imaaday mise inaad daawo isiisa oo iga gadaan kugu imaaday waa daawaa rabaa inaa ugu daro kadibna ay dhimato saasay ku dhimato markaasaa wuxuu dhahay haddii taas adiga aa ku afareysatay daawo waa ku siinaa wuu yiri laakiinse adiga waxaan kuu sheego yiri daawo kuu fiican iyo mid kuu daran midda kuu daran waxa waaye uu dhahay daawo waxaan ku sii karaa hadda daasiis isla hadda hore ay ka dhimanayso taas laakiinse adiga waxaa laga yaabaa in markaas lagaa shakiyo maadaama ay yacni ilan meesha haddii dhimasho ay imaado wadan dowlada yacni aa kasoo jeedaa in baaris ay imaado la ogaado kadibna yacni tacaamulkiina ama sida markaas ayada ah dabeecadihiini iyo maxay ahayto dhaqankiini iyo sida markaas yacni waxa idinka dhexeeya yacni noo mucaamaladiina sida ay ahayd la ogaanaa inay xumeyd markii la ogaado faraha kusoo galayso marka taas intay dhici lahayd oo adigina markaas sijin ama maxay ahayto xabsi ama in lagu daldalo aa muteysan lahayd waxaan ku siinaa daawo kale oo berito dhib aan ku keeneynin ee inta igu sugoodhaa farmashiga gudihiisa waay qol wuxuu galay markaas daawooyinka ay ku jiraan markii bannaanka yacni ay ka dhammaadaan farmashiga uu kasoo saaranayo kadibna uu yacni bannaanka uu soo dhigaayo qolkii uu galay wuxuu soo bixiyey bahal goojo uu soo bixiyey goojada waa taqaanay midda oo hadda wejiga la marmarsadoo kaleento fitamiinadoo kaleento oo lagu dhibcinayo kale uu soo bixiyey wuxuu dhahay daawadaana qaadaysaa waxaa sameynaysaa mar walba oo cunto aa u gurtid islaanta sodohda ah dhowr dhibcadooda ugu daraysaa mar walba ay cunto cunayso daawadan wuxuu dhahay haddii ay u geeriyooto adiga wax shakiya yacni ma ku soo galayo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay bilooyin ay kugu qaadato jirkeedii siday saameyn ugu yeelan lahayd dhibaato yacni ugu geysan lahayd 2 bil 3 bil 4 bil yacni bilooyin ay kugu qaadanaya adigana inaa intaas sabartaa la rabaa waxaa kaloo sameynaysaa dabeecadahan xuxunka ah ee mar walba isku dagaalaysaan inaa badashid wax walba ay jeceshahay inaa u samaysid waxyaabo ay ku farxaysay inaa u samaysid yacni inaa daryeeshid inaa maxay to hadal qurux badan aa dhahdid inaa u roonaatid yacni inaa dabeecadaadii aa badasho oo aa kasoo qaado sida hooyada oo kale aadan kasoo qaadin inay tahay sodohdaadoo kale maxaa yeele haddii ay dhimato berito adiga lagaama shakinaayo oo xitaa ninkaaga markhaati kuu noqonayo oo wuxuu ku leeyahay xaaskayga iyo hooyaday way isku fiicnaayeen lacalla xitaa shaki hadduu imaado asaaga ku difaacayo waayahay tiri daawadii ay soo qaaday markay guriga imaaday isla sidii markaas oo ninkii ku dhahay ayay bilowday cunto walba qadada quraacda cashada markii ay saas u kariso islaanta cuntada markaas ay cunayso
way ugu titislinaysaa ama way ugu dhidhibcinaysaa, goojadii ugu dhidhibcinaysaa, way siinaysaa. dabeecadihii bedel la dhahan way bilowday, waxay bilowday inay duqdii u roonaato, cuntooyinka ugu roonaanayso, korka u riiriixayso, madaxa xinaha ama xilaanka ay u marinayso, oo korka maxay u misaajeynayso, lugaha u riixriixayso, u jujucinayso. waxaan ku dhahay maasha allah, casriye ay u keenayso, la sheekeysanayo, la qoslayo, la baashaalayo. waxaa ku dhahay tii farxadeed maba aysan ka hakarninba islaantii sodohda ahayd. bes waxaa dhacday markaan in islaantii sodohda ayadana ay kasoo qaaday gabadhii sida gabadheedii oo kaleenta, maadaama gabadhii ay ku aragtay isbedel aad iyo aad u badan ay ku aragtay, ay hore ugu arki jirin, ayna u roon tahay. markaan wiilkii wuxuu arkay in gabadhii xaaskiisa iyo islaantii hooyadiisa ahayd ay isku yihiin, aan ku dhahay macii maleel ay isku yihiin, aan ku dhahay labadooda kaale iska arag, qosolkooda, baashaalkooda, farxadooda, reereyntooda wuu la yaabay. wuxuu isdhahay hooyada iyo gabadha intay iskaga macaadeen waayo. bas asaguu ku faraxsan yahay maadaama uu xal u waaye, uuna ku wareeray, maadaama hadda ay heshiiyeen, aad ugu faraxsan yahay. heshiiska ay heshiiyeen iyo farxadda iyo jawiga iyo qosolka ay ku jiraan, asagana sidoo kale wuu ku faraxsan yahay. waxaa dhacday in markaas ay sii marayso 6 bilood. gabadhaanita bil walba ee bixaysa, ninkii way aadaysaa, way kasoo qaaday, cuntadii ugu daraysaa. 6 bilood markay dhammaatay way noqotay, farmashigii aaday. wiilkiia waxay dhahday walaalo waa ku baryaa, aniga sodohday ma rabo inay dhimato. daawooyinkiina 6 bilood oo dhan si joogtaa mar walba ugu shubi jiray. haddii aa isleedahay dhibaatooyin ama maxay to saameyn ayay jirkeedii ku yeeshteen, waxaan rabaa mid markaas kaga hortagi karto inay waxyeelo u geysato ama maxay to heer dhimasho, yacni in ay la gaarto, wax looga hortagi karo oo lagu daaweyn karo inaa isiisid. ma rabo sodohday inay dhimato. yacni gabadhii shalayta dhahaysay sodohday inay dhimato ayaan rabaa, ayaa haddana waxay leedahay sodohday inay dhimato ma rabo. daawooyinkii aan u isticmaalayay mid markaas yacni aan ku daaweeyey isii. markaasaa wuxuu dhahay shalayta waa kuwaaniyuu dhahay, inta aana daawada ku siinin, meel walboo fiican oo wanaagaan wax kaa tusoo dhahay. waa iga diiday, aad iyo aadaan u xanaaqsaneed, oo yacni dhiigaagan uu karaayay, waxna waa ku fahansii waayuu yiri. laakiinse kelmadda fiican ah qofka aad dhahaysad xitaa sadaqo waayuu yiri. mid kale qofka haddii uu ku xumeeyo, xumaan haddii aa ugu jawaabtid, meeshaas horta samaan kama imaanayo. laakiinse haddaa arid qofkan in uu xun yahay oo adiga samaan ama wanaag aa ugu jawaabtid, meeshii waxaa ka imaanaysaa fiicnaan iyo isjecel ayaa ka imaanaysaa. marka waa dareemay in shaydaan oo idinku dhex jiro. wixii aniga aan ku siinayena sun ma aheenoo waxay ahayd biyo cad ayuu ahaa. intaasna yacni marka aan ku dhahay waqti ayay kugu qaadanaysaa, waxay yacni aan ola jeeday si yacni markaas adiga dabeecadaada iyo dabeecaddeeda isku fahmi lahaayeen oo aa isku jeclaa laheedeen. waqtigay qaadanaysaa yacni inaa u sabartid. adiga waxaa is leedahay qoftan inta ay daawadii ama suntii jirkeeda uga faafayso, wanaag kula dhaqan. laakiinse wanaagaas wuxuu idinka dhex dhalinayay labadiina jeceyl fara badan, in maanta sodohdaadii aa shalayta karaasanaysa aad jeclaato, oo aad dhimashada la rabtay aa maantana nolol aa la doonaysid. taas ayay ka micno ahayd, anigoo aakhiradadan u cabsanayay, adduunkana aadan yacni ceeb iyo maxay ahayto ama jeel ama maxay ahayto dhimasho adigana sidoo kale inaadan ku muteysanin darteeda ayaan taas u sameeyey. marka waxaa fiican mar walba wax walboo xun in markaasi xumaan aan loogu jawaabin oo fiicnaan looga jawaabo. marka haddii aa aragtid sodo dhib badan ama qeylinayso, adiga haddii aa u gaawisid oo wax walba ay markaas kugu dhibsanaysa aa u bedeshid, way fiicnaanaysaa. midda kale horta waxaa fiican inaa horta aa kasoo qaadid sodohdaada, sodoh inaadan kasoo qaadin oo hooyada adiga ku dhashay aa kasoo qaadid. marka adiga aa leedahay sodohday waa waxyeeleena, dhibaatan ku sameynaa, adiga wiilaa kula dhashtay, berita gabaroo aroosaa. gabadhaas markii uu arooso, ma jeceshahay hooyada inay waxyeeleyso? adiga i daawanayo waay, ma jeceshahay hooyada inay waxyeeleyso, ay maxay ahayto nolosheedii ay u dhamayso? ma jecesha ama nolosheedii ay maxay ahayto dhibaatooyin u horseeda? ma jecesha? waa may. taasoo kale kasoo qaad. adiga ha isdhihin hooyadaa birta amaa la xumeeyaa. wanaaga aa samaysid birta ayuu ku anfacayaa, ficil kheyrkiisana waa helaysaa. marka walaalahayga qaaliga, qisadaas maanta quruxda badan lahaa idinkugu talagalay ahayd
inaa ka helaysiin aad iyo aada horta maxay ahayto taas aa idinkaga hubaa. fadlan waxaa idinka codsanaan muuqaalka like saartaan, asxaabtiinana aa la sheergaraysaan. wixii ra'yigaaga ah hadda hanaga baqiilna ku dhaha, commentiga free waaye, liketa free waaye, subscribe-ka free waaye, daawashadana free waaye, ma fahanteen? anigana maasha allah free a idinkugu soo gudbinooyaa. intaasna waa kaftankeygii iska yaraa waaye. intan videogan mid lamid ah ku kulmi doonan waxaa idinkaga sii tagayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.